شاشة gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa gabdho qurux badan wiilashiina Soomaaliyeed ajaanib wuxuu faa'iido leeyahay malahan in maskaxda ka dhaawaca maahan wax kale oo faa'iido leeyahay malahan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته channel ka daawanaysiin waa Leila Axmed official channel ka daa ku cusub tahay please subscribe like share comment qurux badan ka soo bixi haraha hadaa hore noola joogtin waxaan ku leeyahay aad baad u mahadsan tahay daawashada ay daawatid hataa channelkii ku cusub tahayna ma sha Allah subscribe ii dheh like badan ii saar ii share garee ma sha Allah aad u mahadsantiin asxaabta igu soo dirtay waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantiin ma sha Allah commentiyada quruxda badan waa arkay sida title-ku ugu aragteenba maanta waxa ka hadli rabaa TikTok waa ogtihiin wax qosol badan wax ooynaayo wax farxad leh wax walba TikTok ku arkaysaa hadda dadka waxay noqdeen YouTube iyo waxa loo wareegtay TikTok ayaa waxa ka arkay sida Facebook-yada la soo saaray waa aragtay wiilasha Soomaaliyeed oo dhaheen waxaan guursan lahayn ama guursanaynaaba gabdhaha iltiriga aan guursanaynaa wiilashii oo gabdhaha Soomaaliyeed ay dhaheen ka qurux badan waa laga qurxiyaha la Soomaaliye wiilasha qaybna waxay dhahday sidaba aad u aragtay dootin insha Allah fiidiyoyaal ka soo diyaariyay oo TikTok ka soo qaaday aan rabaa inaan nituso وأنا قاعد إيجي قصر سيء إذا كانوا حاربا قايبني إن أكو قصشين قفل بين الرأي جيس إن أركض نركز سوماليات أول علينا إن حاربا ودتك ولا كل فكر بدني هاي قف ولا كل فكر دومي هاي قف أديك الرأي هاي ستا أنا الرأي هاي ستا قفل بس دتك اسكو الرأي معهن اسكو وحنا معهن أصحاب تشرفت له أنا جو إحنا قرح بدل ما بجرا عملنا سومالي هداني هاي أنا قوم بقرح بدل صراحة قفل بقى أساس لقرحان لكن أنا waxa waaye gabdhaha Soomaaliyeed yaa la leedin waa gabdho qurux badan waa gabdho midab ma sha Allah iska leh waa gabdho Ilaahay qurux midaysiiyay aqli Ilaahay u dhaliyay ma sha Allah asturan ma sha Allah marka asxaabta sharafta leh horta aad iyo aad u qoslay waxa isdhahay bal asxaabtaada reaction iyo wax video oo wax heeso ama waxa loo soo sameeyay ma arkin horta ani heeso maro inaan soo sameeyo reaction ka bixiyo laakiin TikTok-yada waa jeclahay waxyaalaha faniga iska qosolka ah inaan ka soo bixiyo oo waxa jeclahay hadii ay la jeceshahayna commentiga igu reeb ila soo wadaag inaan soo badiyo midkaas waa dhiga sidoo ku leeyahay wax waliba waxa ku dhahay soo dhig ila soo wadaag isoo qor marka aqristo oo farxaya anigana ma sha Allah hadii aad jooskaada heen waa iska dhaaf kartaa hadii jooskaada heen waa ila soo wadaagi kartaa fikir walbo as leedahay ina Axmed way soo dhigi kartaa oo fiican ma sha Allah fikirka binaadamka isku mid maahan ila soo wadaag insha Allah wixii aad jeceshahay mar walba waxa dadka ku fiirsanay in baad wax u tahay qof walba dadku way kala duwan qof walba wax uu jecel yahay in uu soo bandhigo ma fahamtay marka hadii aad jeceshahay wax walba oo aan jeceshahay inaan kula soo wadaago adna ila soo wadaag qaybta comment igu raab hadii cajaal iyo macsal aragtaa oo ku soo gelina ka cabsanaan intaas ma iska kaftankeeni waxaan rabaa inaan lila soo wadaago anigan aad aan ugu qoslay oo aad iyo aad waxaan ku dhahay oo la dhacay arwa inaan lila wadaago intaas oo marka waxaan rabaa inaan lila wadaago TikTok-gaas taanti asxaabta sharafta leh waxaan rabaa in soo qabto fiidiyoyaasha ka soo diyaariyay TikTok-ga bal ila arka isla markaana ay ku dul qorayeen erayo ka xanaajinaya gabdhaha Soomaalida kuwaas oo u dhignaa sida tanna gabdhaha Tigreeg waa khubus macalbeeg isku dar khubus macalbeeg waa kuwi gabdhaha iltiriga khubus macalbeeg
waa nafaqo egas kalaab iyo waxana fadhi yeerayo kala noocaasa isla markaana waxay ku ducaysanayeen iyo gacmaha sare u taagaya inuu sii kululaado dagaalka u dhaxeeya dowladda Itoobiya iyo TPLF si ay ugu soo qaxaan gabdhaha Tigreeg oo ay ku sheegayeen inay yihiin biisa si gaar ah loo farsameeyay gabdhaha Soomaalida oo arrinkaasi u arkayeen inuu ku yahay qadaf iyo meel ka dhacaya dhankooda bilaabay inay soo saaraan iyaguna sawirada wiilasha Tigreega kuwaas oo ay soo dhigayeen barahooda xiriirka bulshada isla markaana ay ku dulqorayeen eraya iyaguna ay kaga hortagayaan kuwii ka soo yeeray ragga Soomaalida waxaa xusid mudan daawadayaal sawirada ay gabdhaha Soomaalidu kala soo baxeen googlaha inuu ku jiro sawir uu leeyahay agaasimaha tooshka siyaasaddu kaasoo ay maleynayeen sawir wiil Tigreega sawirkaasna uu ka mid yahay kuwa lagu baahiyay madaxa Soomaaliyeed gabdhii xanaaq ay gaareen Soomaalida midaan kale u laabanayna wiilkan kale ra'yigiisa dumarka Tigreega xibad adigu taageersan si gabadh kooba gursan Tigreega ha way sababtoo waxa weeye baleeg oo ma garanin oo Tigreega si faalan tan dhaawa oo inaanu saaxiibanahay sabaha marka aad u gursanaysaa maxay dumarka Tigreega ama horta wax ku muuqdo ma aragtaa sabaarta wixii muuqdo waxa la yiraahdo way muuqdaan koodii intaan waxa laga anigu jaalay soo maraysaa waxaydan way midka labaad waa aragteen waxaan rabaa midka saddexaad in aragtiin ani aad iga qosirsiin iyo dumarka Tigreega iyo dumarka Soomaalida la isbarbar dhigay maalmaha social media baad gursiga iyo baa la isbarbar dhigay iyo Soomaali oo ay maxay keeniyay barba keebad gursanay markaa ya teena waxaan gursanaya teemida afgaranayo Tigreega afgaranaya kaala iyo waxa lama afgaranayo aanu Tigreega kuma aqdo reer waxaan hay burco laga burco doonaya والله أنا داعي ما شاء الله كي سدح أدوار أركتين ويل كان ربع ما شاء الله وويل في سكفانيا ويلش الصوماليات ويل وحاكو جر تالنت له وما شاء الله وتالنت جوده أنا قوسنين لكن ما شاء الله تيك توك اللي هو أركي يعني ربع عرتك سلامة يا ربع عرت الصومالي إله وديبا كله وحكى لوايا كله ما شاء الله فيديو إنه نقول يا مرة فيديو iska dheeraad wax faa'iido u leeyahay malahan maanta qasarkaas rabaa inaan nil soo wadaagay waa wax maanta social media yaalo wax Facebook yaalo ra'yigaada iyo adiga in waxa jeclaystay aad iska qosasho xooga aad iska baashaashid gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay waa gabdho qurux badan wiilashiina Soomaaliyeed ajaanib wuxuu faa'iido leeyahay malahan in maskaxda ka dhaawaca maahan wax kale oo faa'iido leeyahay malahan ajaanib hadaad gabarayni ajaanib guursatid iskaxdaada ha ku talagelin qof lagu xisaabtamayo ma naqanaysid future-kaada dambe awlaadaada noloshaada aad bay u dhibaatoonaysaa wiilka Soomaaliyeed asagana sidoo kale markuu gabar ajaanib guursado maskaxdiisa inay justo noqoto ka yaabin waayo waxay kala dagaalamaan ajaanib oo dhan markaa guursatid wuxuu kala dagaalamayaa maskixiin ma rabo haddii qof aa wax tahay wax codkar ah mise qof karti leh aad tahay wuxuu isku dayayaa inuu maskaxda ka mashquuliyo inuu dood badan ku geliyo inuu dhibaato badan oo kugu sameeyo sida maskaxda wax kaaga gaarto ama sidaad u noqon qof shakhsiyadda ka maqan inaad noqotid marka kula shakhsiyadda ka maqan qof wax ahayn inaad noqotid oo macnaha inaad fadhisid inaad jiiftid inaad joogtid baad kala aqooninba marka waxaan ku soo gabagabeynaa videoga ajaanib hal iska dhaafo Soomaalida una iskursato dadkaad u baa wax ku tahay marka bye bye